caqabadaha waxaa jiray caqabado naga hor yimi kuwaas oo soo bilaabmay markii aan xafiiska la wareegnay caqabadahan waxaa waday koox ay ka go'nayd inay degmada curyaamiyaan kuwaas oo isugu jiray maamuladii hore ee degmada qaarkood madaxdii hore ee Puntland qaar ka mid ah iyo dadkii ku dhadhawaa maamulkii hore ee Puntland markii ugu horeysay intaan shaqo bilaabin waxa kooxdani juhdi badan galiyeen in uusan kalsooni helin guddigii joogtada ahaa ee golaha deegaanka taasoo aanu ka gudubnay waxaa jiray abaabul dhaqaale joogto ah oo kooxdani ku bixinaysay inaanan helin firaaqo aanu wax ku qabanno waqtigana ku dhammaado istifaac kooxdani waxay sameeyeen 7 isku day oo burburin golaha deegaanka ah iyadoo ay ilaaween inay wadanka xilalka ugu sareeya iyo kuwa dhexeba ka soo qabteen haddana qaarkood xilal sare hayaan lagulana shaqeeyay cid walibana ay samayn karto waxa ay sameeyeen taasoo mustaqbalka dalkeena dhibaato ku ah dadweynaha degmadu waxay noola shaqeeyeen si weyn oo aan kala har lahayn marka laga reebo kooxdan yar oo isu hibaysay maamulka degmada Garowe kooxdan waxa hadafkoodu ahaa 2 qaybood oo kala ah qayb dhaqaale doon ah iyo qayb maamulka degmadan aan u ogoleen cid aysan iyagu wadan caqabadaha waxa kale oo kamid ahaa lacagtii curaarta ahayd ee caasimadda oo lagu bixin jiray ammaanka iyo bilicda magaaladu ma hesho taas oo ku maqan dawladda dhexe iyadoo aanu raadinteeda waqti badan gelinay ugu dambeyntiina u gudbinay golaha wakiilada Puntland taasoo ay mar labaad goluhu ansixiyeen 2% oo dakhliga guud ee Puntland ah welina lacagtaas magaalada ma helin caqabadaha waxa kamid ahaa khilaafaadka dhulka taasoo qaybo badan oo bulshada kamid ah dhulka ku mashquuleen waxa jiray dad xirmaystay dhul daaqsimeedkii kuwaas oo hub u urursaday inay dooxooyinka xoolo daaqeenka ah kaligood qaataan kadibna bulshada in badan oo kamid ah ku daydeen sidoo kalena xirmaysteen dooxooyin xoolo daaqeena taas oo keeni karta ammaanka oo faraha ka baxa